maanta ayaa waxaa shir degdeg ah oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya la isugu yimid hoolka dowladda hoose ee degmada Marka. Shirkaas oo ay ka soo qayb galeen maamulka degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose, hay'adda Ayuub oo ka mid ah hay'adaha ka howlgala degmada Marka isla markaana qayb ka ah wacyigelinta loo sameynayo bulshada iyo laamaha amniga degmada Marka. Kulanka ayaa waxaa looga hadlay arrimo dhowr ah sida in bulshada ay helaan wacyigelin joogto ah, in laamaha amniga degmada ay fuliyaan awaamirta dowladda iyo in la helo goob bulshada lagu karantiilo. Gabagabadii kulanka ayaa la isla afgartay in iskuulka Abubakar Sadiq oo ka mid ah iskuulaadka ku yaala degmada Marka laga dhigo goob bulshada lagu karantiilo si bulshada laga ilaaliyo cudurkan faafaya. Waxaana ugu dambeyn maamulka degmada Marka iyo isku duwaha wasaaradda caafimaadka ee degmada Marka Ismaaciil Ibraahim Danguud ay kormeer ku sameeyeen iskuulkaas oo la doonayo in laga dhigo goobtii bulshada lagu karantiili lahaa. waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha degmada Marka Mudane Cabdullaahi Cali Axmed Waafo oo ka dalbaday madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya in sida ugu dhaqsiyaha badan magaalada Marka lagu soo gaarsiiyo agabkii loogu hortagi lahaa cudurkan Allah naga najiyay ee dunida ku faafay. waxaan halkaan ku taaganahay dhammaan maamulka qaybihiisa kala duwan ee dhaqaatiirtii magaalada Marka, isku duwaha degmada Marka, dhammaan howlwadeenada NGO Ayuub NGO. sidoo kale waxaa halkaasay taagan dhammaan dad u diyaar ah in ay maaragtay ka hortaga corona virus dadkii wacyigelinta howlwadeenada ka ahaa dhammaantood halkaas ayaan wada taaganahay. waa ku dhannahay culamadii, dhaqaatiirtii, maamulkii, hay-adihii. waxaan diyaar u nahay aan halkaan isku keenay inaan sameyno qayladhaan isla markaasayto aan gaarsiino codkayna dowladda federaalka iyo dowladda koonfur galbeed Soomaaliya. waxaan doonaynaa aan isugu nimid maadaama koronaha uu ka dilaacay dhammaan degmada Marka qaybaheeda kala duwan aan dareemayno maalmahan dhimasho fara badan iyo xanuun fara badan maadaama aan aragnay calaamadihii COVID-19 aan aragnay aan halkaasaytuna ku haynin wax agab ah iyo wax yacni markaasayto dadku lagu baari karo aan haynin. waxaan go'aansanay inaan sameyno wacyigelin dheer kadib inaan qayladhaan ku darno aan gaarsiino cod gaaban cod dheer baan u gaarsiino dowladda federaalka iyo dowladda koonfur galbeed Soomaaliya. waxaan codsanaynaa meesha aan taaganahay dugsigan waxaan ugu talagalnay bukaanada aan ku aragnay isla markaasayto calaamadahaasayto inaan halkaan soo gaarsiino si loogu badbaadiyo dhammaan ummadda qaybaheeda kala duwan oo kale la jiifiyo bukaanada halkaan maadaama aanan haynin meel aan markaasayto dadka bukaanada qaba aan ku karantiili karno. waxaan soo jeedinaynaa ama aan soo go'aansanay inaan isugu nimaado halkaan aan halkaan weydiisano dowladda federaalka koonfur galbeedba sida ugu dhaqsiyaha badan dugsigan in nolol dayactiro. waxaan ugu talagalnaa halkaan inuu noqdo isbitaal lagu baxnaaninayo dadka aan ku aragnay calaamadaha ama ma aragtay COVID-19 aan ku aragnay ayaan ugu talagalnay inaan halkaan jiifino keeno. waxaan rabaa stateka koonfur galbeed uu ugu horeeyo madaxweynahayna koonfur galbeed Mudane Cabdicasiis. waxaan ku leenahay bulshada reer Marka way dhib qabtaa. waxaan arkaynaa aan dareemaynaa 3 maalmood ugu dambeysay ilaa 16 qofood inay u geeriyootay calaamadaha xanuunka corona aan ku aragnay aan lagu sifeeyay u geeriyootay baan haynaa. sidoo kale bukaan fara badan oo hadda la haayo neefta ku dhagan tahay habeen iyo maalin aan laga nasanaynin qunfac xanuunkii calaamadihii lagu tilmaamay aan maaragtay muxuu ahay u jeedno ay hayaan ayaa wada jiifa. wax la tiri kara ma ahin magaalo xeebeedka Marka. waxaan ku leenahay mudan madaxweyne way dhiban tahay, way murugaysan tahay. waxaan ka codsanaynaa ilaahay baa mas'uul kaaga dhigay, mas'uulkaynii baa tahay magaaladaasayto Marko galabtaan iyo habeenkan iyo berrito inay hesho gurmad degdeg ah كدولة أهان
ka yacni mas-uul ahaan inaan kaaga helno ayaan kaa codsanaynaa in meeshaan siduu ugu dhaqsiyaha badan dayactir degdeg aan u helno cid allaal ciddii aad u soo wakiilaysid inaad u soo wakiilatid dhismahan noo bilaabto birrito isaa dambe aan helno 2 maalin gudahooda meel aan bukaanada isku keeni karno kuna karantiili karno sidoo kale mudan madaxweyne waxaa jirta qofka buka ee halkaan yaala ma jiro qof u tegi karo Aweys Muumin Xasan Aweys okay raadiyaha iyo telefishinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed magaalada Markaa